Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Gogolaha haddii aad ku qortid waa tuma jaamacadda ugu fiican caalamka, waxa uu gogoluhu jawaab kuu siinayaa inay jaamacaddaasi tahay jaamacadda Oxford. Badanaaba dadku waxay isweydiiyaan sidee ayay ku noqotay jaamacaddani midda ugu horeysa jaamacadaha. Haddaba daawadayaal, fiidiyogeenan waxaynu ku lafaguri doonaa taariikhda jaamacadda Oxford iyo su-aasha hadalhaynta badan dhalisay ee ah sababta ay ku noqotay jaamacadda Oxford jaamacadda ugu fiican ee caalamka. Magacaygu waa Cabdulaahi Axmed, halkaad iga daawanaysaanna waa Niil Media. Daawadayaal, ku soo dhawaada fiidiyogeena oo aynu ku lafaguri doono jaamacadda la yaabka badan ee Oxford iyo sidoo kale xogo muhiima oo aadan hore uga ogeyn jaamacadda Oxford. Sidoo kale waxaynu taaban doonaa scholarship-ka iyo deeqaha ay bixiso jaamacaddani. Haddaba daawade, intaanan bilaabin fiidiyoga, fadlan subscribe noo saar channelka, fiidiyogana like saar si uu gaadho dhalinyaro badan oo u xiiso qaba jaamacadda Oxford. Jaamacadda Oxford ma laha taariikh rasmi ah oo sheegaysa wakhtigii la aasaasay, laakiinse waxaa la qiyaasaa in la aasaasay sanadii 1905 oo ay hadda ka soo wareegtay 925 sano. Waxay jaamacaddu si rasmi ah u soo shaacbacday 1167 xilligaas oo ay ardayda Ingiriisku ka soo laabteen jaamacadda Paris oo iyadu ka fac weyn jaamacadda Oxford. Sanadku markuu ahaa 1188 waxaa lecture u jeediyey aqoon-yahanka jaamacadda, taariikhyahankii caanka ahaa ee General Wells. Sanadku markuu ahaa 1248 waxay jaamacaddu heshay axdi boqortooyo, xilligaas oo uu boqortooyada hayay Henrigii saddexaad. Sanadku markuu ahaa 1190 waxaa yimi ajnabigii ugu horreeyay ee jaamacadda wax ka dhiga oo professor ahaa, kaasoo la oran jiray Imo of the Friesland. Sanadu markay ahayd 1209 waxaa ka dhacay jaamacadda rabshad u dhaxaysa ardayda iyo dadka deegaanka. Rabshadaasoo ay isku soo xulfaysteen ardayda ka soo jeeda waqooyiga iyo sidoo kale ardayda ka soo jeeda koonfurta, kuwaasoo ay la socdaan dadka deegaanku. Rabshadaas waxay dhashay in aqoon-yahanada iyo professorada jaamacaddu ay aadaan deegaanka ama magaalada Cambridge, halkaasoo ay ka aasaaseen jaamacadda hadda loo yaqaano Cambridge University. Khilaafkaasna waxaa la xaliyey qarnigii 15aad, xilligaas oo la sameeyey kollejiyo ay ardaydu ku nagaadaan wakhtiga ay jaamacadda dhiganayaan. Sanadku markuu ahaa 1333 ilaa 1334 isku day ay sameeyeen aqoon-yahanka jaamacadda Oxford waxay ku guuleysteen inay joojiyaan boqorkana ka dhaadhiciyaan inaan jaamacad dambe laga aasaasin waddanka Ingiriiska, xitaa London University ha ahaatee. Laakiin sanadku markuu ahaa 1820 ayaa ay dowladda Ingiriisku dib u furtay in jaamacadaha laga aasaasi karo gudaha waddanka Ingiriiska. Qarniyadii ay mamnuuca ahayd in laga aasaaso jaamacad gudaha Ingiriiska, labada jaamacadood ee Cambridge University iyo sidoo kale Oxford University waxay samaysteen xulafaysi ay ula magac baxeen Oxbridge, kaasoo loo soo gaabiyey inta hore laga soo qaaday jaamacadda magaca Oxford, halka inta dambena laga soo qaaday Cambridge inteeda dambe. Xulafaysigaas oo daarnaa inay isla kaashadaan arrimaha waaweyn sida qandaraasyada iyo sidoo kale arrimaha cilmi baadhista, taasoo markii dambe ka dhigtay inay noqdaan hormuudka jaamacadaha.
sanadku markuu ahaa 1878 waxaa la aasaasay ururka haweenka ee waxbarashada, laakiinse markii dambe khilaaf soo kala dhex galay xubnihii ururka ayaa waxaa la aasaasay 2 kuleej oo khaas u ah haweenka. kuleejyadaas oo kala ahaa Lady Marjorie Hall iyo sidoo kale kuleejka labaad oo la aasaasay 1879 magaciisuna ahaa Somerville College. intaasi waxay ahayd taariikhdii hore ee jaamacadda Oxford. haddaba taariikhda casriga waxa ay bilaabatay wakhtigii gacaankii warshadaha la oran jiray tharwatu sinaaciye. xilligaas oo ay samaysmeen shirkadaha caalamka ka jira, haba ugu badnaadee shirkadaha ka jira wadamada Yurub iyo sidoo kale wadanka Ingiriiska. jaamacaddu waxay xooga badanaaba saartaa dhanka cilmi baadhista iyo sidoo kale aqoonta guud, oo ay mar walba ardayda jaamacaddu ay helaan extra knowledge wax la yiraahdo oo ah aqoon dheeriya. jaamacaddu waxay ka kooban tahay 39 kuliyadood, kuwaasoo hoos taga 6 maamul hoosaad oo maamul walba u madax bannaan yahay maamulkiisa. kuliyadahaasoo dhami waxa ay hoos yimaadaan si guud 4 qaybood. 4 qaybood oo ah qaybta humanities iyo sidoo kale qaybta labaad oo ah social science, halka qaybta saddexaad ay tahay mathematical and physics and life science, halka qaybta afraad ay tahay medical science. jaamacadda shaqaalaheeda waxaa lagu tilmaamaa inay gaadhayaan 7,000 oo qof, halka ardayda jaamacadda sanadkii 2019 xogtii laga sameeyey ay ahaayeen 24,515 qof. ardayda undergraduationku waxay gaadhayeen 11,955 arday, halka ardayda postgraduationkuna ay ahaayeen 12,010 arday. jaamacadda Oxford waxay ku taallaa magaalada Oxford oo 103 kilomitir waqooyiga kaga beegan magaalada caasimadda ee wadanka Ingiriiska ee London. jaamacadda Oxford waxaa ka shaqeeya madxafka jaamacadaha adduunka ugu da'da weyn iyo sidoo kale saxaafadda ugu weyn jaamacadaha adduunka iyo nidaamka maktabadda tacliinta ee ugu weyn dalka oo dhan. sanad maaliyeedka sanadkii 2019 jaamacaddu waxay lahayd dakhli guud oo dhan 2.45 bilyan oo doolarka Mareykanka ah, halka ay ahaayeen 624.8 milyan ay ka timid deeqda cilmi baadhista iyo sidoo kale qandaraasyada. jaamacadda Oxford waxay bartay arday fara badan oo caan ah oo ay ka mid yihiin 28 ra'iisul wasaare oo ka socda boqortooyada Ingiriiska iyo sidoo kale madax kale oo caalamka ka taliya. jaamacadda Oxford Oktoobartii lasoo dhaafay 2020 waxay ku guuleysatay 72 abaalmarin Nobel Prize, 3 goobaha biladleyda iyo 6 ku guuleystay abaalmarinta Turing oo wax ka bartay jaamacadda Oxford ama ka shaqeeyay ama soo booqday jaamacadda Oxford, halka ardaydii hore ay ku guuleysteen 160 biladood oo olombikada ah. jaamacadda Oxford waa hoyga deeqaha waxbarasho oo fara badan oo ay ku jiraan deeqda loo yaqaano Rhodes Scholarship oo ka mid ah barnaamijyada ugu da'da weyn ee caalamiga ee deeqda waxbarasho. daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii aan ku qaadadhigayay jaamacadda cajiibka ee Oxford. waxaan rajeynayaa inaad naga mid noqon doontid oo subscribe saari doontid channelka Nile Media. fadlan fiidiyogana like saar si uu u gaadho asxaab badan iyo sidoo kale saaxiibo badan oo aanu doonayno inay ku soo biiraan ama ka mid noqdaan channelka. waad mahadsan tahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.